بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. qaybtan waa qaybtii shanaad oo insha Allah taala aan uga hadlayno barnaamijka aan ugu magac darnay GMO oo u taagan genetic modified organism oo hore uga soo hadalnay oo ah nidaam beereedka la bedelay oo loo bedelay sidii Ilaahay uu ku khalqay ayaa laga bedelay nooc cusub oo chemical iyo waxyaabo la isku dardaray ayaa hadda marka nidaamka beeraha cusub hadda ilaa iyo 30 sano yani u dhow adduunka lagu soo rogay sidaas ayuuna hadda adduunka intiisa badan wax lagu beeraa nidaam beereedkan cusub waxaan ka soo hadalnay dhibaatada uu maaragtay waxyaabaha lagu sameeyo sida loo beero iyo dhibaatooyin inay leeyihiin isla markaas waxaan kaloo ka hadalnay cuntada warshadeynta iyadana inay ay tahay dhibaato kale oo keeni karta xanuuno sida beeraha marka looga bedelo nidaamkoodii ay xanuuno u keeneen ama u keeni karaan ayaa haddana cuntooyinka marka la sii warshadeeyo wixii awalba beerihii nidaamkii laga bedelay kasoo go'ay haddana la sii warshadeeyay halka waxaa ka fahmi kartaa wax nutrition ama nafaqa ma leh marka ilaa dhibaatooyin badan ayaa ka yimid marka tiyaa marka insha Allah sii wadaynaa GMO-ga anagoo ka hadlayna basically waxaan oo dhan inta badan waxaa uga hadlayo waa yani sidii xanuunada ay dadku u fahmaan meelaha ay ka yimaadeen oo ka hortag loo sameeyo waxyaabaha ugu waaweyn oo aad maaragtay aan jecelahay inaan mar walba ka hadlana waa kansarka iyo dhibaatada uu dadka hadda ku hayo oo aad u soo batay marka waxaan isku dayayaa inta xataa maaragtay xanuunada kansarka imaanin in laga hortagi karo insha Allah taala wixii hadda jirana sidii lagu daaweyn doono ama sidii lagu daaweyn karo waa ka wada hadlana insha Allah taala marka hadda qaybtan waa qaybihii hore waxyaabo badan kaga soo hadalnay nidaam beereedkii waxaan kaga soo hadalnay warshadihii iyo waxyaabo badan oo la socdo hadda marka waxaan u gudbaynaa bi'inillah qaybta ah xanuunada ka yimid marka nidaam beereedka cusub wuxuu la socdaa casrigan cusub warshadeyntana waa casriga cusub oo adduunka waxyaabo hore loo arkay ma aha marka waxaa jirta xanuuniyada casriga iyagana marka nidaamka cuntada casriga waxaa la socda marka xanuunadii casriga la socda marka xanuuno oo hore u jiri jirayna waa ka hadlaynaa oo aan badnaan jirin laakiin haddana soo batay oo aad dadkeedii u batay yar iyo weynna lagu arkay iyo waxaan ka hadlaynaa xanuuno cusub oo casriga la socda oo ay ku yimaadeen nidaamyada cusub marka insha Allah ninkan hadda buugiisa aan ka hadlayo waa aan soo qaatay oo ii fududaaday inaan maaragtay nidaamkanit usoo gudbiyo informationkan ninkan waa ninka hadda ka hor kaga soo hadlay Kevin Truro waa ninka nin American ah oo isku dayay in uu dadkii uu kashifo nidaamka hadda adduunka oo beeraha cusub iyo cuntada la warshadeeyay maxay dadka gaarsiisay iyo maxay dhibaato u keentay nidaamkan cusub oo dadka hadda maaragtay cuntadooda lagu sameeyo taasoo aad maaragtay uga hadlay ilaa uu ka hadlay xataa maaragtay meelo dhaadheer oo waxyaabo badan uu sheegay dad badan inay ku jiraan arrimahan oo dadka maaragtay dhibaatada gaarsiiyay hadii mar alla markii uu waxaan ka hadlay ninkan buuggaana qoray ninkan waa la xiray waa la xukumay 10 sano lagu xukumay waa xiran yahay marka qof alla qofkii ka hadlo nidaamka dabiiciga ah ama daawo ha noqoto ama cuntada ha noqoto ama ha noqoto nidaamka adduunka yani wax loo gado qofkii ka hor yimaado nidaamka hadda socdo dabcan inta badan dhakhaatiirta hadda herbalka oo kale lama ogola in badan waaba la dilaa marka waa iska waxyaabo jira oo qofka hadduu u fiirsado maaragtay ama uu daba kaco uu wax ka arki karo marka ninkan waa la xiray 10 sano hadda xiran yahay lagu xukumay marka saas darteed hadda waxaan maaragtay buugiisa ayaan maaragtay aad u jecelahay oo hadda ka hor ka soo hadlay mar inaan ku laalaabto hadda marka isaga wuxuu sameeyay chapterada kamid ah ayuu wuxuu sameeyay xanuunada casriga ah iyo say ku yimaadaan iyo sidii lagu daaweyn lahaa ayuu mid walba usoo qaadanaya hal usoo qaadanaya xanuunadii marka laakiin ani ma rabo nidaamkaas inaan ku socdo lean waqti badan oo iga qaadanaya kaliya waxaan rabaa yani maadaama waxaan ay yihiin wax isku xiran oo aan maaragtay aan rabno si oo yani duuduuba inaan u faahno dabcan maalin si fiican loo kala sarsaari karo way jirtaa
waqti la siin karo insha allah. laakiin hadda waxaan rabnaa si oo yani iyadoo isku xiran inaan waxa dhan wada fahno. marka waxaan dhahnay waxaa maaragtay jirta oo hadda nidaamka caafimaadka xagga dabiiciga ah, caafimaadka dabiiciga ah, natural medicine ama natural cures ama cuntada maaragtay dabiiciga ah oo loo yaqaano organic. dadka waxaas oo dhan ku dhex jira iyo dhakhaatiirta herbalka iyo waxaas oo dhan waxay maaragtay aaminsan yihiin siyaabaha uu xanuunada ku yimaadaan in ay tahay siyaabo maaragtay la isla yaqaano. masalan waa dhowr siyaaboodba xanuunada way ku imaan karaan. waxay ku imaan karaan qofka inuu jirkiisa uu ka buuxsamo toxic wax la dhaho. toxicka waxyaabaha la dhaho waxaa ka mid a chemicalka, waxaa ka mid a bacteriyada, germska, waxaa ka mid a maaragtay waxyaabaha oxidantska oo jirka u baahnayn. waxyaabahaas oo kale markay jirka ku bataan waxay noqonayaan wax keena xanuunada, especially qofka markuu yani uu jirkiisa yani ay ka bataan wixii oo markaa jirka intaa ka badan uu difaaci waayo. waxay kaloo xanuunada ku yimaadaan nutrition deficiency, yani markuu qofka uu ka yaryahay xagga nafaqada jirkiisa markay aada uga yar tahay xanuunada way ku imaan karaan. sababtoo jirkii difaaci baa ku xiran inuu dhisan yahay. difaacina hadduu dhisnayn waxaa imaan karo marka in uu qofkii noqdo qof aan xanuunada iska celin karin. dabcan especially xanuunada la kala qaado haba u yaraado hargabka oo kale. qofka markuu qof hargab qabo uu u yimaado ama cudurro la kala qaado meel hadduu yimaado saas oo kale markiiba waxa uu noqon karaa qof xanuunkii hore ka qaaday. marka saas way dhici kartaa. siyaabaha kale xanuunada ku yimaado waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo emotional distress. haddii uu qofka uu yahay qof masalan xaalad uu markaas lasoo darstay hadday jirto oo keenaysa inuu ka walwalo ama cabsi ay jirto ama xusni badan uu jiro ama walwal badan uu jiro. waxaas oo dhan waxay keeni kartaa iyada xanuunada way soo jeedi karaan. laanna immune systemkiya markaas yani maskaxdiya meel ku mashquulsan, maskaxdii dhan hamigaasi ku mashquulsan tahay. marka waxyaabaha iyadana uu ku imaan karo xanuunada. waxaa kaloo jiro xanuunada ay iyagana ku imaan karaan yani masalan hadda waayadan dambe oo adduunku waxyaaba badanaa isbedelay weliba 30 sano hadda ugu dambeysay. waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid ah waayadii hore dadka yani waxyaabaha la yiraahdo radiationka saas uma isticmaali jirin. yani waxay ahayd meelo khaas ah lagu isticmaali jiray iyo warshadaha iyo waxaas. laakiin hadda radiationkii iyo waxaa batay waxyaabihii electroniga loo isticmaalayo. marka dabcan howlo badan way sahleen, laakiin wax walba wax ku sahla oo bini'aadamka sameeyey dhibkoodana way wataan. marka radiationkan hadda dadku iska fududaystaan uma malaynayaan in wax dhiba ka yimaado. laakiin xanuunada casriga waxaa la arkay in uu waxyaabaha masalan hadda cellphone-nada kale dadka mobile wada wataan, computer la ag fadhiyaa, wifi iyo internet iyo waxaas lagu dhex jiraa. dabcan marka qofka environmentgiisa hadduu waxaas u bato jirkiisa meelaha xanuunada uu kaga imaan karay ka mid tahay. marka taas anagu hadda marka hore dhac ahaan usii qaadanayna insha allah. waxaan rabnaa inaan kormarno xanuunada ilaa mid u baahan inaan ku istaago ma ahane oo wax yar tacliiq ka bixiyo. inta badan waxaan rabaa inaan maaragtay si oo liista camal ah inaan u sameeyo. marka ka gudubno insha allah xalkii iyo sidee xanuunada marka loo xaliyaa hadday jiraan oo daawo loo heli karaa. waxaan marka isla fiirinaa taas hadduu ilaahay raajo. marka hadda waxaan iska bilaabeynaa maadaama aan ka hadalnay mawduucii siyaabaha ay xanuunada ku imaadaan. insha allah daaweynteedana way sahlanaanaysaa biidnillah maadaama aan ognahay sida ay ku imaanayeen. marka dhibaatada waxa ugu daran waxaa xanuun la garan waayo suu ku yimid, kaas ayaa daawadiisa adkaanaysa. laakiin alxamdulilah inta badan sidaanay xanuunada ku yimaadaan. wallahu aclam. bismillaah. xanuunada hadda casriga way badan yihiin. waxaana maaragtay waxaan ka hadlaya soo gelgeli doonaan. masalan xanuunada casriga waxaa ka mid ah waxyaabaha gaaska. hadda soomaali badan baa gaaska ka sheegata. gaaska yaa jira
يعني waxaa jiro inta aad wax dhan horta waa English laakiin waxaan isku dayaa inta aan Soomaali u bedel karin inaan u bedelo laakiin hadaa bedeli waayo English waan ku dhahayaa wixii markaa Soomaali ahaan aan kusoo dhaweyn karno kusoo dhaweynaa insha Allah. marka gaaska waa gastric يعني dadka hadda Soomaali badan gaas aad يعني dad badan ku xanuunsan waxaa jiro labjeex heart burning aan lahaa bloating iyo wuxuu isku xiray acid reflection waxaan oo dhan waa wax isku soo wada dhow waxayna maaragtay saameynaysaa waa calooshi oo markaa dabeecigeeda ka baxday oo xanuuno la soo darsayn waayo markaa marka dabcan يعني إن شاء الله قدرنا حالات كذا هذينا قاس wuxuu aad ugu badan yahay hadda waayadan dambe waxyaabaha keeno oo aniga aan sida gaarka u baaray waxaa kamid ah يعني caloosha hadii uu qofka bur wax u badan qaadanayo burka يعني waxyaabaha keena in caloosha ay gasta ka dhamaato burku ku aad u qaato wuxuuna keenaa constipation يعني caloosha in qofka saxarada ay ku dhagto marka calooshina marka burka waa wax caloosha aan si fiican aad u digest gareyn karin ama u dejin karin dheefshiidka ku adag maadaama uu yahay wax aan dabiici ahayn oo laga saaray nafaqadii oo dhan marka inta badan halkaas saas ku yimaada marka qofka markuu iska joojiyo gaaska يعني wuu iska yaraanaya hadii cuntadiisa uu dabiici ka dhigo inta badan insha Allah taas xalka dhinaciisa aan ku darayna waxaa kaloo la arkay in ay jiraan haddana xataa isaga wuxuu leeyahay waxyaabaha ay ku yimaadaan waxaa kamid ah dadka iska isticmaalaya daawooyinka farmashiyaha laga soo gado iyadoo loo qoray iyadoo loo qorin markay qofka iska badiyo dabcan acid reflection kan يعني labjeex waxa Soomaalidu u yaqaanaan acid reflection waxa waaye wuxuu maaragtay acid reflex gan wuxuu sameynayaa caloosha dhacaanka ay wax ku shiido ayaa wuxuu ka soo baxayaa meeshii loogu talagalay albaabkii loogu talagalay uu ka soo gudbaya oo qofku wuxuu ku keenaa xanuun badan ku keenaya oo laabta ku toosan heart burning waa la dhahaa marka gaaskana waxa waaye waa nabar caloosha ku sameysmay oo nabarkaas u baahan yahay in uu caafimaadka qofka maaragtay nabarka inuu biskoodo bloating kana waxa waaye waa wax maaragtay hawada caloosha ku badan tahay oo qofku dareemaya inuu aad u dibirsan yahay kale marka wuxuu ku leeyahay xanuunada saan oo kale ah ana cuntada aad marka xoga baaray intaanu sheego way dhacdaa marka qofka cuntadiisa ay chemical ay ku badan tahay isaga marka wuxuu ku darayaa oo iyadoo dabcan chemical ka maqneen daawooyinka farmashiyaha laga soo gato ama dhakhaatiirta ay aad u qoraan marka dhakhaatiirta iyaga kala duwan qaar waxaa jirto aad isku dayaya inay qofka siyaabo kale u xaliyaan xanuunkiisa inta ayna daawo badan u qorin dhakhaatiirta qaarkoodna waxay jecel yihiin inay daawo badan qoraan marka way kala duwan yihiin marka dadka waxaa la arkay daawooyinka farmashiyaha markay tagaan يعني way iska soo aruursanayaan xataa waxaan loo qorin ay soo qaadanayaan marka iyagoo dhahay qof hebel qof aqaana ku fiicnaaday oo anigana waan qaadanaya dabcan kama warqabaan dadka inta badan ayaa laga yaabaa daawo walba waxay leedahay side effect mana ka qaranin qofkii daawada soo sameeyay uu kugu qoray meesha kugu qoran tahay warqadda hadaa fiirsi daawada uu soo siiyay qayb dhan waxay ku sheegaysaa side effect waxa kaaga imaan kara yani taas waa taas waxyaabaha kale oo xanuunada casriga waxaa kamid ah iyadana wax la yiraahdo acne waxa waaye nabarrada wajiga ka soo baxo waxaa keeni kara hormone imbalance wax la dhaho مثلا يعني waxaa jirta barnaamij aan ka hadlay oo caagaga ku saabsan iyo bacda dhibaatada ay dadku ku keenayaan hadda ma rabo inuu naga qaato anaga kaas barnaamijkaas time inuu naga qaato ma rabo laakiin waa barnaamij dhan oo insha Allah jiro insha Allah dadka dhan inuu soo wada gaaraan rajeynaya caaga dhibaatada uu dadka ku hayo marka hormonal imbalance waxyaabaha keeni karo caagaga ka imaadaan inta badan iyo daawooyinka la qoro xataa way ku jiraan oo daawooyinka badan marka يعني hormonal imbalance يعني qofka hadii hormonkiisa ay aad isku dhaxyacsan yihiin يعني wajiga laga arki karaa wajigu ka soo baxaya waxa keeni kara waxyaabo wajiga maaragtay ka soo baxo nabarada
waa qofka gooryaanka uu ku badan yahay caloosha bahalada caloosha ku jiraan taas iyadana way dhici kartaa allergiga dhici kara laakiin waxaasoo dhan waxay base yani base waxa u ah in uu qofkan jirkiisa ay calooshiisa aan caafimaad qabin maxaa kaloo jiro xanuunyada casriga waxaa ka mid ah ADD wax la yiraahdo iyo ADHD waxaan waa wax xagga westiga aad loo isticmaalaa dabcan waxaa dhacday daawooyin xataa loo soo saaray oo aniga aan isleeyahay looma baahna ADD-gan waa yani ilmaha Soomaalida waxay dhahaan uu fudud yahay ma fariisan karo uu fudud yahay yani uu qaylo badan yahay uu dagaal badan yahay qofkan uu fudud yahay dhan Soomaalida marka fudaadkaas oo xoogaa weliba ziyaado ah ayaa ADD-gan yani qofka attention deficit disorder ayaa la dhahaa marka mesela qofkii laga rabay inuu xoogaa haddii uu wax baranayo kale ma fadhin karo kursigii maanta wuxuu jecel yahay inuu socdo inuu hadlaayo inuu yani ma laha wuu fudud yahay qofkaasiito mana rabo inuu wax dhageysto oo ma soo jeedin karo maskaxdiisa noocan ilmaha waa lagu arkaa waxyaabahaasiito qaarkood ilmaha qaarkood taasna waxaa aad uga hadlay xagga caagaga markaan ka hadlay barnaamijka caagaga oo la arkay dhibaato caagaga chemical ku jiro oo ka yimid inay taas maaragtay ilmihii maadaama caagag wax lagu siiyo inuu dhinacaasi xagga caagagan kaga hadlay uu kaga imaan karaa marka waxyaabo badan xataa way dhici kartaa masalan sokorta oo kale sokorta waayadan dambe chemical badanaa lagu sameeyey waa soo process gareeyey refined sugar sokorta bulshada soo martay oo dhan يعني waa wax keeni karto inay maaragtay ilmaha xataa madaxa ka wareegso ama qofku weyn xataa markuu qaato cudurkan ilmaha xanuunadan yani xanuun ma dhihi karo ama cudur laakiin waa xaalad waaye lagu arko dadka marka qofku weyn xataa way ku dhici kartaa marka saas darteed marka waa xaalad ku dhici karta qof weyn iyo qof yar waxyaabo badan aan keeni kara yani isaga waxyaabo badan uu ka hadlaaya laakiin insha Allah xagga xalkaan rabaa inaan ku daro mar rabo inaan ku dheeraado sokortaas waa la arkay sokor nooc iyadana waxaa jirta aspartame la dhaho sweetener sokor sweetener la dhaho masalan sokor caadi ama sokor chemical isku dardaray oo macaan ka dhigayo wax aadan maskaxda ugu daran tahay dadka diabetic qaata la dhahaa laakiin ma umaleynaa inay wax fiican tahay xanuunayna keenta badan oo xagga maskaxda ah marka sokoraha saas oo kale waxaa kaloo jiro daawo cuntooyinka dadka cuntada special Soomaalida waxaan arkay adduunka dhan waa loo badan yahay laakiin Soomaalidu waxay xagga wixii halkaan la keeno Soomaaliya controlka aad uma controlna iyadoo weliba toxinkan iyo adduunka dhan uu nala qabo laakiin waxaan looga roon yahay percentage iyo waa la ilaaliyaa inta ay soo galay cuntada ku jirto iyo waxaas dhan regulation loo sameeyo iyadoo iyaga dhanba ma fiicna chemicalkaas in loo dhawaado laakiin waa la kala roon yahay Soomaaliya markuu umaleynaa inuu jiro wax regulation ah marka waxaa jirta sokortaas sweetenerka dhaho waa chemical socdo oo qofka u macaaneynayo waxa uu cunayo mana aha dabiici tii dabiiciga ahaydna xataa warshada la geliyey chemicalsa lagu soo refine gareeyey marka saas darteed yani sokoraha xataa way keenaan waxyaabahan maskaxda qofka xanuun maaragtay ku keenayo xaalad uu qofka deganaan karin nin hadda ka hor ka hadlay oo nin dhakhtar ah oo waxaa la dhahaa John Dr. Blakelock magaciisa waa Blakelock marka last namekiisa marka wuxuu ka hadlayay sokortan oo hadda masnuuca yani sokor la sameeyay waaye sweetenerka la dhaho dadka diabetic la siiyo qofkii dhahayo sokor ma raban xoogaa marka qaarkood sokortaan u isticmaala isagoon garanaynin inay tan ka daran tahay tan kale tan ayaa aad u sii daran marka ninkaa wuxuu yiri hadda ka hor yani sokorta oo dhan say dhibaato u leedahay weliba mid refined sugarka ah oo warshada soo martay wuxuu ka hadlay wuxuu yiri experiment mar waxaa la sameeyay xabsi oo xabsiyada waaweyn oo maximum security la dhaho
ayaa waxaa la tagay dhahay dad aad u dhib badan oo aad yani rabshadooda laga joogi waayo awalba wixii lagu soo xiray xataa waxyaabo inay dad dileen iyo khatartooda aad u badan tahay ayaa wuxuu yidhi waxaa lasoo qaaday laba group labadii group wuxuu dhahay dadkaas maaragtay waxaa la siiyey cunto dabiici ah oo khudaar iyo fruit u badan sokorti dhanna waa laga joojiyey groupna waxaa la yidhi cuntadoodii iyo sokortoodii waxooda iska cunaayeen labadii group waqtiyaa loo qabtay markii aada maaragtay loo fiiriyey xaaladooda markii wixii nidaamkii dietka ama cuntada laga bedelay adiga 2 week ma ahayd mise 2 bilood uu dhahay waxaa la arkay groupkii cuntada laga bedelay waa dadkii meesha khatarta ku jiray oo dadka dhan aada u dhibi jiray nooca cuntada laga bedelay waxaa la arkay dadkii iska soo degay oo dadkii la sheekaysanaya si tartiib ah librariyadooda iska tagaya buwaag soo qaadanaya yacni deganaan waxaa la arkay iyaga xataa productive noqday oo isku dayaya inay maaragtay dadka wax u taraan ama dad caawiyaan waxaa la arkay total yani isbedel toosaa la arkay marka ay groupkii kale oo cuntadoodii caadiga sokortooda cunayay sidii u dagaalamayaan buuqoodii dhibkoodii u badnaa marka halkaas waxaa kasoo baxday yani gaaladu waxay xoogaa nooga fiican yihiin researchgoodana uu badan yahay experimentgoodana uu badan yahay marka yani insha allah inaa maaragtay waxyaabaha fiican aan ooga dayan karno oo alxikmatu nabigu wuxuu dhahay alxikmatu daalatu lmu'min yani wixii fiican waa inaa maaragtay aan qaadan karno marka hadda sokorta saasa yani lagu ogaaday dhibaatadeeda dad badanna experiment kale iyo waxyaaba badan way sameeyeen waxaa kaloo jiro soomaalida waxyaabaha ay isticmaalaan arkay oo maskaxda toos ugu dhaco yani caagaga marka laga soo tago waxaa ka mid wax la yidhaahdo maraq digaag maraq digaagan markaa runtii markaa waddanka mid aad baa oola yaabay yani nooc jumbo waxaas camalaan lagu sheegay ani weli indhaha ma saaran laakiin waxaa arki jiray maraq digaag kale oo dibadda aan ku arkay oo digaag ku sawiran yahay maraq digaagaasay taa marka ani aad hadda ka hor aad wax oga baaray anoo kaas ka warqabay ayaa marka soomaaliya marka imid maraq digaag ayaa yaalo oo nooc jumbo loo dhaho waxaas camal weliba xataa waxaa la ii sheegay wax yaro oo chemical cad oo suuqa lagu gado markaan weydiiyey dadka waxaa la yidhi cuntada lagu darsadaa wuu macaaneeya waa pure chemical oo yani waxba lagu qasay aadaa ola yaaba yani dadka waxyaabaha ay ogol yihiin inay noloshooda maaragtay jirkooda geliyaan marka wixii ani aan baari jiray oo ahaa bahashan la yiraahdo siyaabaha aan ku helay xataa waxay ahayd waxaan maraq digaaga ku jiro hadda waxaan ka hadli doonaa chemical maraq digaaga ku jiro aada khatar u ah gabadhaan dhalay ayaa waxaan arki jirnay xoogaa si u joogto way yani iyadoo suuxayso dhulka ku dhacaysa arkeen gabadhaan marka waa garan waayo wixii ku dhacay marka waxaan arki jiray gabadhii say u joogto gabadh iska caafimaad qabto waxba dhib lahayn marka waxaan arkay maalin annagoo suuqa mareyno gabadhii dhulka ku dhacday haddana maalinka subax salaada iyadoo tukanaysa haddana iyadoo jikada ku dhacday adiga markaan dhowr jeer saasoo kale arkay cuntadeediaan fiiriyay waxay cunayso gurigii oo dhan waxaan ku cunayna waa waxooda dabiici ah inta badan yani ma wada dhahay chemical la-aan ma wada aha laakiin alxamdulillah inta badan waa ilaalin jiray marka mar dambe ayaa marka u fiirsaday gabadhaan inay bal banaanka wax kasoo cunto dabcan banaankii wax ka cunay gabadhaan yaro waay marka waxyaabaha aada u jecleed waxaa ka mid ah jibsiga nooc waxaa jiro tortiro la dhaho tortiro waa nooc yani xooga aada loo soo dhanaaniyey oo isagoo basbaas lahaa noocyo kala duwanay sameeyaan bahalkaasa marka waxaan ku arkay boorsadeed isagoo ku jiro dhowr jeer bahalkaa marka fiiriyey waxyaabaha uu ka samaysan yahay dhanaan soo baaray waxaa marka si fiican iiga soo baxday hal nooc oo uu ka hadlay chemical marka markii hoos aan si fiican u fiiriyey waxyaabaha lagu dari karo waxaa ka mida waxyaabaha lagu daro waxaa ka mida maraq digaaga ayaa ku qoran meesha maraq digaag yani bahalkan maraq digaag ku sawiran yahay digaaga marka maraq digaag oo dhan waxaa la yidhi waxaa ku jiro ama inta badan uma ka marnaa la dhahay maadadan waxaa la dhahaa MSG marka lasoo gaabiyo MSG la dhahaa magaceeda waa magac dheer
monosodium glutamate la dhaho monosodium glutamate. marka waagaas adiga dhowr sano ka hor ahayd markaan arkay gabadhii yacni waan kala hadlay waana u sheegay inay joojiso waxaas iyo wax la mid ah maraq digaag damban gurigeena iyo dadkii ay samaysay dadkii isticmaalo dhan waan kala hadli jiray marka alla markay joojisay bahalkii gabadhii wax dhib oo kale ma arkin leanna wuxuu samayn jiray blood pressurekeeda ayaa hoos u dhici jiray mar alla markay cunto leanna waxaan waa chemical maskaxdeeda ku dhacayay hal mar maxaa la dhahaa dhiigeeda pressureka dhiigaa dhacaya marka uu pressureka dhulka ku dhacana ma taagnaan karto marka saas darteed yacni markaasaan aniga alxamdulilah wax alla wixii dhinacaas glutamate-kan dhan uu ku jiro waa joojin jiray ugu hore dadka xataa waa kala hadli jiray marka taas way keeni kartaa maaragtay maskaxda xanuunka maskaxda ku dhaco yani waxyaabaha tooska xanuunka maskaxda ku dhici karo ama chemicalka maskaxda toos yani u taaban karo ayay ka mid tahay waxayna ku jirtaa maraq digaagyada soomaalidana waxaan arkay wax kasii daran maraq digaaga oo cad oo la yidhi suuqu yaalla ayaaba wax lagu darsadaa marka waa yani ma garanayo qofkaas oo kale waxa uu ku fikiraya markuu chemical cad uu afka gashanayo marka taas waa xaggaas waxaan uga bixinaa ADG-ga waxaa jira allergies badan waayadan dambe xanuunada casriga waxaa ku badan allergiga wuu dhici karaa laakiin waa yani waxyaabo badanaa keeni kara allergiga waxaa keeni karo yani chemicalka markuu uu bato qofkii yani jirki haddana calooshii qofka taagan tahay masalan qof calooshiisii taagan tahay oo musqusha tagi karin ayaa haddana chemical badan qaadanaya dabcan marka jirkii bini-aadanka wixii markay ka bataan meel uu ka bixiyo raadinaya marka jirkana wuu duleelooyin yaryar uu leeyahay marka meel uu ka bixiyo raadinaya marka sunti saas darteed mararka qaarkood saas waa lagu arkaa waxaa kaloo isaga hadda uu leeyahay clogged liver masalan haddii uu beerka yani wixii uu process gareyn jiray shaqadii uu kasoo yaraato taas iyadana way ka imaan kartaa oo yani waxyaabaha shaqada ka xayiraayana waa un dhibaato soo gaarta jirka marka taas allergiga oo aada u badan ugu jira xanuunada casriga waxaa kaloo ka mid ah anxiety iyo stress ayuu leeyahay anxiety stress waxa waaye waa kii hadda kahor aan kasoo hadalnay yani siyaabaha xanuunada ay ku imaadaan yani qofkii inuu walwal iyo waxaas maanta dhan uu ku jiro cabsi iyo walwal inay maaragto qofkii yani aada ugu jiro marka waxyaabaha keeni karana waxaa ka mid a mar walba qof iska degan oo iska caafimaad qabo waxba qabin oo xataa xaalooda uu ka walwalsan yahay waxba soo marin waxaa la arkayaa saan dareemaya waa waxyaabaha maaragta hadda casriga la socda marka isaga wuxuu leeyahay dadku way u kala duwan yihiin yani waxyaabaha keeni kara tan waana run dabcan cuntooyinka qaarkood haddii sida sokorta markaan ka hadalnay bahalkan maraq digaaga markaan ka hadalnay waa waxyaabaha keeni kara hal mar qofka moodkiisa inuu isbedelo qof iska faraxsan hal mar waxaa kasoo qofkiio xanaaqsan ama qofkiio maxaa dhahaa saad yani qofkiio xasiin ah si u maaragta u walwalsan marka waa siyaabo badan oo kalena way noqon kartaa waxaa kaloo ka mid ah xanuunada casriga oo aada u badan waxyaabaha artritiska la dhaho waa lafa xanuunka oo weliba lafa xanuunka inflammationka uu ku badan yahay marka taasna waxyaabaha uu ka imaan karo isaga wuxuu leeyahay waa toxinkiio jirka ka batay iyo parasites yani bahalo inay caloosha qofka ku jiraan iyo viruses intaba way keeni karaan laakiin ani meelo badan markaa aan akhriyay waxyaabo badan markaan fiirinayay waxyaabahan lafa xanuunka waa yacni marka uu qofkii cuntadii uu cunayo hadduu nafaqad ka helaynin chemicalkiina uu ka buuxsamay jirkii waxaa ka dhammaanaya marka waxyaabihii dabiiciga uu usoo saari jiray sida masalan labada laf dhexdeeda waxaa ku jiro dheecaan oo ugu talagalay ilaahay in ayna istaabanin dheecaankaasoo kala dhammaanaya marka labadii laf way isxoqayaan marka inflammationa meesha ka dhalanayo waxyaabo maaragta saasoo kale dhici karo lafihii ayaa waxaa ku dhacaya yani xataa maaragtay waxay noqonayaan way daciifayaan marka artritiskaasna wuu jiraa isagoo noocyo badan wuu jiraa
waxaa kaloo jira xanuunada asma neefta ayaa ka mid ah in ay neefta maaragtay ay badatay waa la ogyahay waayadan dambe yar iyo weyn isku si yani aad bay u badatay waayadii hore way yareyn dabcan wuxuu ku leeyahay isaga yani waxaa keeni kara emotional stress hadduu qofka xaalad ku jiro oo maaragtay nafsiyan uu maaragtay xanuunsan yahay nafsiyan oo dhibaato ay soo martay ama wax uu ka walwalsan yahay ama yani mustaqbalka uu ka walwalsan yahay waxyaaba badan aa dhici kara oo emotional stress uu ku yimaado asmada waxaa inta badan allergic ay ka timaadaa marka qofka allergic uu qabo dabcan meesha hawada soo maraysa hadday bararto dabcan waxaa imaanayso in ay neefta ku yaraato iyo hormonal imbalance isaga wuxuu leeyahay hormonka imbalance ku dhacana yani hormonkii oo shaqadiisii maaragtay u qabsanaynin sidii la rabay oo uu ka wareersan yahayna way dhici kartaa xanuunada casriga waxaa kaloo ka mid ah waxa la yiraahdo autism Soomaaliya ma aqaan magaca Soomaaliya waxa lagu dhaho laakiin waa xanuunada casriga ah oo aan awal la arki jirin oo hadda bilowday waayadan dambe waxayna ku badan yihiin westiga aad ugu badan yihiin laga yaabo Soomaaliya inay jiraan oo aniga aan u fiirsanin laakiin westiga aad yani aad dad badan baa arrinkaa daba kacay oo raadiyey maxaa keenay xanuunkan cusub marka dad badan ayaa maaragtay arrinkaa ka hadlay marka ani in badan markaan baaray oo aan si fiican ugu fiirsaday dadka intooda badan hadda waxay leeyihiin waxaa keenay talaalada ilmaha lagu talaalo ayaa keenay markaa fiirisid dadku waxyaaba badan ay ka kala hadleen laakiin ani waxaan qaatay dadka yiri talaalku ka yimid taasa ani ku qancay sababtoo markaan fiiriyey waxyaabaha talaalka ku jiro ingredientiga talaalka laga sameeyey waxyaabaha la isku talaalo masalan wixii qofka lagu duraayo marka la fiiriyo taas ayaa waxay u baahan tahay in buwaag laga qoro yani in qof masalan ilmihii oo dhashay oo caafimaad qabo oo ilaahay caafimaadkiisa u dhammaystiray oo wax dhiba aan lahayn ayaa waxaa la leeyahay birito cudur ku dhici karo cudur biri ku imaan karo ayaan hadda maanta waxaan siinaynaa cudurkiiaan ku duraynaa si birid markuu hadduu ku dhici lahaa uu iskaga difaaci karo oo jirka difaac uu u samaysto waa hadda baby dhashay waa jirkiyo weli yacni daciif ah oo cusub oo hadda aan dhibaato jirin ayaa xanuunkii lagu duraya marka micnaheeda waxa waa qofka talaalka micnihiisu waa xanuunkii laftirkiisa ayaa let's say qofka waxaa laga talaalayaa TB laftirkeeda qofka lagu duraya ilmihii yarka lagu duraya marka waxaa la leeyahay si ayna ugu imaanin birito maalin ay TB si ayna ugu dhicin awalan qof oo qaybka ka warqabo ma jiro ayna waxaan ku dhici lahayn qofkan tan labaad qadar hadduu ilaah qadarana cid celin karto ma jirto ani marka dadka waxaan ahay kasoo horjeeda talaalka boqolkiiba boqol aan kasoo horjeedaa lianno wuxuu iga qaatay waqti badan inaan baaro waxaan iga soo baxday in ay tahay waxyaabaha khaldaadka u waaweyn oo dadka ay ku dhaceen oo ilmaha maaragtay laga galay in la talaalo ilmaha talaal oo ma baahna waxa lagu talaalayo lagu sheegayana waa cudurkii laftirkiisa marka ilmo badana cudurkii toos wuxuu ugu dhacay maadaama jirkooda lagu shubay uu ugu dhacay toos ugu dhacay marka waxaan hadda autism-kana haddana waxaa kaloo jirto wixii lagu talaalayo ilmaha cudurkii lagu talaalayo wuxuu ku jiraa dhalooyin yaryar ku jiraa dhalooyinkaasaytan waxaa la rabaa sanawaad inay yaalaan waxay u baahan yihiin maado xafidayso maadada xafido talaalada waxaa la dhahaa mercury ku jira marka mercury hadday ku jirto markii la fiiriyey oo la analyze gareeyey oo la baaray mercury iyo maskaxda maxay yani haddii ay maskaxda ay waxaan galaan maxaa ku dhici karo ayaa research laga sameeyey waxaa soo baxday mercuryga haddii maskaxda iska dhaaf inay taabateen marka loo dhaweeyo maskaxda xididadeeda inayba shrinking yani inay hoos u noqonayaan gadaal u noqonayaan meeshaas ay bixi lahaayeen sida geedka kale u bixi lahaayeen hoos ay usoo noqonayaan haddiiba loo dhaweeyo mercuryga marka taas research laga sameeyey aniga waa arkay marka maadaama ay awalan uu cudur yahay marka labaadna mercurygana maskaxda hadduu toos ugu dhaco ilmihii uu dhibaato weyn gaarsiin karo
ani waxaan qabaa talaal oo dhan looma baahna talaal oo dhan looma baahna waana wax gaalada ka yimid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waqtigiisa wax talaal jiray wax ma jiraan waqtiyadii xataa ka dambeeyay oo dadka maaragtay muslimiinta ay meel dhaadheer ka gaareen cilmiga wax talaala ma jirin kaliya qofka waxa waaye hadduu cudurka ku dhaco markaasay talaal la diil garayn jiray laakiin cuduraa laga hortagaa markaasaa hadda awal waxay ahaan jireen dhowr talaalood sanawaad kadib waxay noqdeen intaas waa kasii dareen waa kasii bateen hadda waxay marayaan america nin aad uga hadlayaa jiro yacni waxay marayaan 60 iyo xoogaa talaal ilmihii isagoon gaarin 18 sano intaasoo talaalo isku dardaraya intaasoo cudurro ayaa lagu duraya marka aniga dadka talaalada kasoo horjeeda ahay 100% maadaama aan baaritaan xoog leh ku sameeyay aan arkay wax faa'iido oo ugu jiro ilmaha markay dhashaan iyo markay weyn yihiin haddii lagu duro ilaa dhib ma ahni wax kale ogama imaanayo taas marka autismku waxaa la isku raacay in xanuunadii autismka xanuunka noocaas inay ka yimaadaan talaaladii lagu duro ilmahan weliba dadkaas ee aadka u baarbaaray waxay aad uga hadlaan talaalka 2 sano xagga westiga talaalka 2 sano ilmihii iska fiican iska cayaarayo dadkiisa la cayaarayo la sheekeysanayo cunayo cabayo yacni ilmihii aad u firfircoon baa la geenayaa dhakhtarkii waa lagu soo talaalayaa isbuuc kadib ilmihii wuu soo dhacayaa waxaa la arkaa ilmihii aamusan meel fadhiisanaya gees keligiis dadkii ma rabo inuu la sheekaysto ama qaarkood uu kasii daraa dagaaluu galayaa iyadii level kale leh autismka marka ani waxaan aaminsanahay dadka noocaas aniga aan raacsanahay inuu talaalka loo baahnayn maadaama khatartiisa ay ka badan tahay faa'iidana maba arka aniga kama arka researchka sameeyay xanuunada casriga waxaa kaloo ka mid ah back pain yacni xanuunada dhabarka ku dhaco ayaa ka mid ah marka xanuunada dhabarka ayaa ka mid ah xanuunadaasoo mental isagu wuxuu leeyahay mental iyo emotional stress ayaa maaragtay qofkaas oo kale dhici karto yani hydration inuu jirkiisa biyaha ka yar yahay saas oo kale infection viral infection waxaasoo dhan way dhici kartaa laakiin sideedaba aniga waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa ka mid ah intaas uu hadda isaga sheegayo waxaan ku dari lahaa waxay ku imaan karaan yacni qofka haddii uu nafaqadii ay aad uga yartahay dhabarkiisa xataa maaragtay wuxuu dhibsanaya qofka culeyska saaran jirkiisa ma hayn karo dhabar xanuunka mararka qaarkood meeshaasuu ka imaan karaa dhabar xanuunka wuxuu kaloo ka imaan karaa yacni qofka hadduu cayil badan jiro dabcan weydka iyo culeyskaas oo dhan dhabarkii ma qaadi karo marka yacni qofka waxaa loo baahan yahay in uu ilaaliyo maaragtay weydkiisa ama miisaankiisa waxyaabo badanaa dhici karto xataa waxaa dhici karto qofka isagoo is ogeyn inuu qaaday wax si khalad wax u qaaday si waxaa jirto dhabarka loogu turo si gaara dhabarka wax loo gacmaha wax loogu qaadaa culeys hadduu jiro masalan 5 kiilo 10 kiilo 15 kiilo hal mar uu rabo qofka inuu kor u qaado shay ah marka waxaa dhici karto inuu wixii marka si qalad hal mar inuu usoo dafay marka dhabarkiina ay maaragtay dhaawac oo meesha ka gaaro iyadana way dhici kartaa marka noocyo badan oo ku imaan karaa laakiin aniga waxyaabaha aadka aan xooga u saaro waxa waaye inuu nafaqada xaggeeda xataa uu ka imaan karo oo qofku u baahan yahay lafaha cuntada lafaha u roon inuu aad u qaato si uu yacni dhabarkiisa maaragtay uu shaqo fiican ugu qaban karo dabcan dhabarka waxaa ku jiro neerfihii oo dhanaa ku jiro dabcan waxaa imaan karta xataa neerbaha inuu mararka qaarkood ay mushkiladda tahay waxaa kaloo jira xanuunada casriga isaga wuxuu kusoo darayaa xanuunada laakiin waa xaalo waaye bad breath yacni qofka inuu hawada afkiisa kasoo baxaysa inay aad u ureyso ur badan marka wuxuu ku leeyahay tan oo kale waxay ku imaan kartaa qofka calooshiisa cuntadii cunay ma wada dejinin calooshii weli way ku harsan tahay marka iyo maaragtay digestive enzymeska ka maqan vitaminadii oo maaragtay dejin lahaa caloosha digestive ka shaqeynay ayaa ka maaragtay yar toxins jiro overload yacni calooshiya aad maaragtay u wasakhaysan waxyaabahaas oo dhan dhici karto waxaa dhici karto bad breath yacni inuu afka wax kasoo baxay qofka inuu neeftiisa ay ureyso in uu jiro bahala caloosha inay ku jiraan saas oo kale marka taasna waa taas wuxuu kaloo ka hadlayaa bladder infection waxaan rabaa programkan
inuu ila dhaafin hal saac يعني hal saac inaan u duubaan rabaa marka waxaa laga yaabaa qayb labaad inuu yeesho xanuunada marka laga hadlaayo marka hadda 40 daqiiqo ayuu u dhow yahay marka insha Allah waa haddii uu hal saac gaarto waan joojinayaa si saacad kale aan loo duubi karo insha Allah tacaala marka hal saac ka badan inuu qofka dhageysan laga yaabo ama inay ku adag tahay xanuunada marka waxaa ka mid wuxuu ku dhahay bladder infection مثلا kaadi haysta oo aad yani infection kiya maartay ku batay yani asaga wuxuu bladder infection laakiin ani waa arkay dad badan oo yani xanuunkaas ii sheegay inuu hayo oo yani raadinayo daawo dabiici ah oo siinay way jirta alxamdulillah daawo effective ah oo dabiici ah siin jirnay marka bladder infection ka waa meesha kaadi haysti oo uu maaragtay ku dhacay infection marka waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah isaga hadda buuggiis kuma qorno laakiin inta badan aan dadkii aan arkay oo dhan waxay ii sheegeen inay kaadidii cayshan karin oo kaadida qofkii weynaana musqusha intuu gaarin ay aad u adag tahay yani inuu kaadida uu musqusha gaarsiiyo hadday ilmo yar yihiin sariirtiiba maaragtay ay ku kaadinayaan marka alxamdulillah marka daawada siinay isbuuc gudaheeda way ku fiicnaadeen dadka alxamdulillah waa wax daawooyin aan ugu talagalnay oo dabiici ah oo la dagaalamayo infectionka alxamdulillah taas marka way dhici kartaa marka wuxuu ku leeyahay isaga waa bacterial infection virus infection fungi and parasites intaba waa waxyaabaha infectionka keeno ayay dhici kartaa inay bahalo jiraan inay fungal inuu jiro virus infection inuu jiro bacteria infection waxaas oo dhan way dhici kartaa marka isaga siyaabo oo lagu daaweeyo sheegaya laakiin ani waxaan rabaa hal mar inaan ka wada hadlo xanuunada dhan sidii lagu daaweyn lahaa ilaa specific hal in mar kale loo qaadqaaday ayay u baahan yihiin insha Allah wuxuu kaloo ka hadlay xanuunada casriga waxaa ka mid ah blood clots yani waa xinjiraha waa xanuun aad u khatar badan mushkiladda ugu khatarta badan waxaa waaye markuu maskaxda xinjiraha fadhiistaan maskaxda hadday xinjiraha fadhiistaan waa marka uu qofka ku dhacayo paralysis xanuunka la dhaho paralysis oo gacan iyo lug ay shaqada gabayaan ama maaragtay qayb jirka shaqada ay gabayso marka heerkaasuu maaragtay gaari karaa waxaa kaloo dhici karta wadnaha xataa oo u daran yahay wadnihii maadaama dhiigga uu u baahan yahay inuu si toos u socdo wuu xayiri karaa marka blood clotska waa waxyaabaha ugu khatarta badan maskaxda iyo wadnuhu ugu badan yahay inuu maaragtay dhibaatadiisa ay ka timaado isaga marka wuxuu ku leeyahay waxyaabaha ay ka yimaadaan waxaa dhici karto daawooyinka farmashiyaha oo maaragtay daawooyinka farmashiyaha oo non prescription qofka isagoo loo qorin iyo prescribed iyadoo ah labadiba iyadoo loo qoray iyadoo loo qorin daawooyinka dadka aadka ay u qaadanayaan blood clots ku iman karaa dabcan hadduu qof walba daawada uu qaadanayo akhriyo daawooyinka inta badan waxaa ku qoran side effectyada waxaa ka mid ah inuu dhiigga maaragtay xinjiro u yeelayo marka qofka waxaa la rabaa inuu fiiriyo kaniini madax xanuun markuu qaadanayo oo haddana la leeyahay side effectiga waxaa ka mid ah blood clot inuu sameeyo inuu yacni xinjiro jirka u sameeyo madax xanuunka maa fudud mise waxaa fudud qofka inuu stroke ku dhaco oo hadhowdii jirkiisa qayb dhan ay shaqada gabto marka yacni qofka xataa inuu isku miisaamo daawadii laga soo gadanayo farmashiyaha daawo gaasaa soo gada daawo madax xanuun daawo kanta yacni wixiina waxaa loo baahan yahay qofka inuu isku dheelitiro aniga alxamdulillah daawooyin mar hore ay ugu dambeysay mana qaadan jirin qaliinka markaa maray kadib yacni dhakhtarkii wuxuu ii qoray maadaama caloosheeda ay dhuunta u dhowdahay lagu talay dhuunta waxaa igu imaan jira acid reflection acidkaa soo dhawaaday oo hadda markaan seexdo habeenkii waa inaan 2 barkin ku seexdo sideedaba caloosheeda maadaama ay dhuunta u dhowdahay aslan laakiin markii taas noqoto wuxuu isaga dhihi jiray waxaan ku siinayaa daawo kaa kala yareynaysa ani marka haddaan 2 barkin qaato iyo markii dambena waxaa ogaaday markaan si fiican ugu fiirsaday xaaladda cuntadeeda iyo waxyaabaha keeni karo inuu acidkan habeenkii igu soo noqdo markaan seexdo markii dambe waxaan arkay cuntada cishaha kadib aan cunayo haddaan cishaha kadib cunto cuno waxaas waa isku arkaa xanuunka noocaas habeenkii waa la soo kacaya laakiin waxaan arkay ilaahay amarkiis in uu yacni uu ahaynba maaragtay wax u baahan in meel kale laga raadiyo
marka waxaa dhacday wuxuu ii qori jiray daawo oo wuxuu dhihi jiray daawadan qaado way kaa kala yareynaysaa. marka daawadii waan soo qaaday, waxaan soo qaaday warqadii, waa fiiriyay side effectigi ilaa 60 side effect ka gaartay. waan kasoo tegay, waxaan fiiriyey yacni daawadan maxay tahay shaqada ay qabanayso. masalan waa la isiiyey side effectigi waa fahmay, laakiin maxay tahay indicationka, maxaa waaye waxa ay qabanayso, yani shaqada ay qabanayso. taasaan aan fiiriyey, internetka aan fiiriyey shaqada ay qabanayso. warqadana ku qoran tahay, laakiin internetka iyadoo faahfaahsan ay ku qoran tahay. shaqada ay qabanayso waxa waaye waxay block gareynaysaa acidkii oo dhan ay block gareynaysaa, saasaan ku qoran. marka waxaan fiiriyey yani side effectigi waa gooni, haddana shaqadii jirkayga oo ilaahay dabiiciga ahayd oo jirkayga ku shaqaynayay ayaa la kala goynaya. masalan haddii acidka laga istaajiyo caloosheeda, maxaa cuntada burburinaya marka caloosheeda markay cuntada burbur xanuuno kala imaanaya. haddii caloosha ay dejin weydo cuntada, hadday digestiveki ay ka bixi weydo xanuuno kala imaanaya. marka sidee yani waa wax isku wada xiran cycle. kaniinigaani ku siinayaan way ogyihiin inuu xanuunkaas kale kugu dhacayo, waxay ku leeyihin kiima ka fiicnaataa kanna daawadan u qaado. yani qofka wuxuu galayaa cycle uu ka bixi karin yani kaniini qaadashadaasito weligiis waxaas isaga jiraan. marka daawadaasito 2 jeer la ii qor. markii hore waan ka cabsaday markaa arkay saas, haddana maalin kale xoogaa waxaan intaan fahmin xanuunka wuxuu iigu imaan jiray cuntada leydka aan cunayo. haddaan cuno cishaha kadib mar walba waa isku arki jiray, laakiin intaana fahmin dhibaatada taas meesha ka imaanayso ayaa haddana maalin kale u tegay. waa arkay waxaan dhahay wallahi acidkaa weli dhib igu hay. markaas wuxuu yidhi daawadii hadda kahor aan ku qoray waatana qaado. waan qaatay, lacag badanaan kasoo bixiyay, qaali ahayd daawada. waa markii labaadaan soo gaday, haddana markaa akhriyay side effectigi wixii sidii haddana igu cusboonaysaa, cabsidii igu cusboonaatay, haddana waan iska joojiyay, kaniinkii qashka ku daray. marka saas darteed yani daawooyinka waxaa dhici karta dadka ay fududaysanayaan in ay jirto xanuuno badan in laga qaadi karo. marka marna haddii yani lagu dhaho xinjiraa ka dhalan karo, waa waxyaabaha ugu khatarta badan. qofka inuu iska akriyo ama qof fahmaayo yani u fasiri karo inuu helo insha allah. xanuunada casriga waxaa kaloo kamid ah kansarka. kansarka waa waxa hadda maaragtay mawduucan oo dhan igu keenay inaan ka hadlo, maadaama ani igu dhacay oo dadkao dhan hadda aan maaragtay barnaamijyadan iyo waxaan oo dhan aan u duubaayo, waa sidii looga hortagi lahaa kansarka iyo xanuunada kale. marka dabcan ani markuu igu dhacayay yani ma garan karin, qaliinkiyaa maray. xataa qaliinkaas mar dambe marka ani cilmigan oo dhan ilaahay ii sahlay, waxaa ogaaday qaliinkaas in laigula degdegay, ma ahayn inaan qaliinkaas maro, laakiin ilaahay ii qadaray. lianno alternative ama dhinaca kale waxay ahaan lahayd in la isiiyo chemotherapy. chemotherapyadana waa midda dadka disho. yani waxaan aaminsanahay chemotherapyada hadda halkaan ka sheegaya cida oga cabsanaya ma jirto. chemotherapy qofkii lagu shubo hadday tiisa gelin, waxaa la arkay dad qof alla qofkii kansar ku dhacay oo chemotherapy inta lagu shubay dhintay wax yar kadib, waxaa la arkay numberka inta ugu badan 90% wixii dilay dadkaas inuu ahaa chemotherapyada. qof aan uga cabsanaa halka ma jirto. waa waxyaabaha aan aad u jeclaa dadka inaan u sheego. chemotherapyada ma aha daawo. chemotherapyada daawo ma aha. yani chemotherapyada waxaa laga sameeyey yani dagaalkii labaad adduunka hubay ahayd, hub lagu dagaalamo. yani waxay ahayd waxyaabaha dadka lagu dilo ayay ahayd, sun dadka lagu dilo. sidee marka chemotherapyada hadda marka daawo u noqon kartaa? marka qofkii baaro isaga ogaan doono. waxaan ma aha wax maaragtay radiationka waa waxyaabaha dadka lagu dilo. sidee qofkaan maaragtay jirkiisiyaaba la gubayaaba. chemotherapyada waxyaabaha ay samayso waxa waaye mar allanka qofka lagu shubo waxay leeyihiin waxay dilaysaa selkii oo kansarka ah, laakiin actually selalkii oo difaaca dhan ay dilaysaa. haddaba markay disho qofkan oo awalba xanuunkan dhan hayay, markii difaaca laga dilo maxaa u harsan? waa in la dilo, qofku wuu dhimanaya. marka dadku u malaynaya chemotherapy inay daawo tahay, daawo ma aha. anaa halkaasayta maanta haddaanan u dhaaranin nasiibaan leeyahay, lianno intii research aan ka sameeyey, lianno wuxuu iga qaatay waqti badan iga qaatay barnaamijkan kansarka baaritaankiisa iyo inaan fahmo micnaheeda waxa uu yahay. waxaan halkaasayta maanta dhaar ku mari karaa waxa aan ka arkay aan ka akhriyay chemotherapyada waxa ay tahay daawo ma aha.
ma aha daawo waa sun literally waa sun maxaa lagu garan karaa qofka tinta ka bidaysa matag iyo labo waxaa ku dhacaysa qofka dacfi xoog leh jirkiisa dhan isbedelayo qofkii hal mar sii socda la arkaya qofkii ree aakhirad noqona yaa waxaas dhan waa maxay sun waa qofka jirkiisa waxa lagu shubo marka dadka ilaahay uga cabsadaan jirka bini aadamka ilaahay dadka wuxuu u siiyay gift ya loo qofka shaqo inuu ku qabsado marka haddii uu sun sumeeyay ka war awal buu sumeysnaa oo qofka cuntada iyo wixii uu cunayo sun ahayd haddana daawadii waa sun marka naxariis ma jiro yani systemka noocaana waxaan dadka u sheegaya naxariis kuma jirto marka waxaa fiican inay dadkii in ay ka warqabaan 10 daqiiqo ay dhiman dadkii inay ka warqabaan waxaan kiimotherapyada la leeyahay ma aha daawo qofkii kansar ku dhacay ha iska ilaaliyo cirbad lagu duro iyo muxuu ahayd daawo lagu siinayaa 20 maalmood mar bishii mar 2 bilood mar lagu siinaa waxaas hadii lagu yiraahdo waa kiimotherapy ka dheera inta ka dheeraan kartid insha Allah taala xalalka gadaalan uga soo daraya sida kansarka lagu daaweyn karo meel alla meesha maran arrinkaas ita aniga aan dadka kala hadlayo insha Allah taala qofkii maaragtay barnaamijka oo soo gaarana telefoonada dadku way yaqaanaan oo soo wici karaa meeshan joogo waa kala hadlaya aniga qof fadhiyo ma ihi Soomaaliya dhana maaragtay aan rabaa inaan wada gaaro insha Allah taala marka qofka isoo waco telefoonka kula hadli kara biin Allah kariim ana u fasirayo hadda barnaamijkan qayb dhanaan kaga dhigaya sida kansarka loola dagaalamo hadii Ilaahay raaco marka kansarka waxa lagu daaweeyaa chemotherapy dabcan marka maxaa keeno waa overload toxins ani waagi igu dhacay cilmi badan kama haynin mana fahansaneyn laakiin gadaal marka ogaaday wuxuu u baahnaa jirkayga inaan nadiifiyo kaliya waxyaabo antibiotic dabiici ah inaan qaato tii Ilaahay ma qadarin Ilaahay yani waagi waxa igu dhaceen wax laga wada naxay ahayd laakiin khayrka ku jiro wuxuu ahaa cilmigan oo dhan inaan bartay oo Ilaahay i baray alxamdulillah oo maanta aniga aan dad badan ka caawin karo insha Allah taala marka taasoo kale way keeni kartaa overload toxins iyo nutritional deficiency labadiba toxinkii qofka ka batay iyo waxaan dhahnay waxa keeni kara xanuunada iyo nutritionkii ka yar nafaqadii ka yar labadiba aniga way ahayeen waxayna hayaan qof walba oo Soomaali ah oo cuntadiisa ay ka kooban tahay baasto iyo bariis iyo canjeero burcad laga sameeyay hadda Soomaaliya dadka joogan waxa u dheer saliid oo la yiraahdo saliid caday iyo caano boore intaas u sii dheer marka qofka intaas cunto ay u tahay waa qof nafaqo aan jirkiisa ku jirin diyaar wuxuu yahay any minute inuu kasar ku dhici karo iyo xanuuno kale nas'al Allah salaam markuu qofka chemical cuntadii warshadahan cunay wax nafaqana uu ka helin waxa u fudud marka inuu kansarka ku dhaco caagagna wax lagu cuno Soomaaliya intaas oo sii dheerta marka waxaas oo dhan waa waxyaabaha keeni karo kansarka keeni karo marka waxyaabaha kale oo keeni karo waxa kamid uu leeyahay electronic magnetic chaos مثلا waxyaabaha hadda dhan xanuunada keeni karo waxa kamid ah yani waxyaabaha waayadan dambe waxaan isticmaalayna ama cell phone ha noqdo ama computer ha noqdo ama laptop ha noqdo by the way waxaan rabaa inaan ku daro hadalkan yani nimanka haday og yihiin dhibaatada ugu jirto laptopka inay dhabta saartaan iyo cell phone-ka jeebabka ugu jiro yani haday og yihiin mar hore joojin lahayn dhibaatooyin waxa jirto oo research-gayga aniga ay ku jirto in ay dhibaato xoog leh ay u keenayso nimanka waxaan la yiraahdo radiation-ka ku jira telefoonada iyo laptop-yada nimanka ha iska ilaaliyaan inay laptop-ka saartaan dhabta dabcan laptop waxa loo bixiyay wixii dhabta saaray laakiin uma baahna waxa adduunka waxyaabo badan socdo ee dadka ka warqabin laakiin marab inaan waxyaabo kala dhaxgal hadda waxaan ka hadlayaa digniin ahaan nimanka in ayna laptop-ka dhabta saarinin telefoonkana ay jeebabka gashanin sababtoo ah xagga maaragtay dhalidana mushkila kaga imaanaysa inay ilmo dhalaan waxyaabaha aan ka hadlayno oo radiation oo effect gareyn karo qaybta ilmo dhalida marka aad xataa dumarka
يعني rag iyo dumar uma kala darna uma sii kala darna laakiin ragga waxay jawaabkay gashtaan dumarka boorsooyinkay ku qaataan ama siyaas oo kale gacanta ku qabsadaan laakiin sideedaba waxaase ka sii daran marka dhegta la saarto dhegtii marka la saarayo maskaxda already way karsamaysaa radiation ku jiro wallahi waxa u maleynaa dadka hadda jooga ilaahay qof walba waqtigiisu siiyay oo adduun ka tagay laakiin mar hore ee dadka inay iska wada dhintaan hadiiba maanta casriga waxyaabaha casriga hadda aan ka dhiganay cunto iyo alaabo aan isticmaalno dhibaatada ay nagu hayaan kaliya marka taas waxa waaye waxaan ugu darayaa yani in oo ay tahay khatar ay tahay yani in uu qofka radiationka marka isaga hadda wuxuu ku soo daraya electronic magnetic waxyaabahan hadda lagu leeyahay wireless habeenkii waxaa fiican anigana waa sameeyaa alxamdulilah yani inta aan ka awoodo aad dadka ka hadlo dhinacan maaragtay waxyaabaha electroniga iyo radiationka sida dadka dhibaatada ugu hayso dadka aad uga hadlo markaa aan si fiican wax uga dhageystay waxaa ugu daran markuu qofka telefoonkiisa intuu is ag dhigo uu ku seexanayo masalan telefoonkii waxaa la rabaa inaad damiso ama airplane mode inaad geliso airplane mode inuu markaa telefoonkii uu يعني markaa soo qabanaynin telefoonada soo dhacay inuu ku keeni karin dabcan radiation la socdo marka telefoonka inuu ka dansan yahay ama airplane mode in la geliyo sidoo kale wifi in la damiyo guriga dhexdiisa يعني microwave ka oo la isticmaalayo dhan in la joojiyo waa very dangerous aad u khatar u yahay marka xasbunallahu wa ni'mal wakiil waxyaabaha kaloo keeni kara wuxuu dhahay kansarka mental iyo emotional stress yani nolosha maanta adduunka hadda aan ku jirno anaga waa naf iyo stress maanta dhan walwal iyo cabsi iyo wax maaragtay qofka dhibaato unbuu ka fikiraya marka waa waxyaabahaas oo marka isku tagaan oo jirka haddana toxin ku jiro nutrition fiican lahayn waxaas oo dhan waxay keenaysaa yani wuxuu u fududeynaya kansarkan wuxuu u batay wax kale uma badanin wuxuu u batay jirkii bini aadamka difaaciya ka dhamaaday ama nafaqo ma leh ama toxins iyo chemical ka buuxsamay electronic iyo waxaan oo dhan way wareerinayaan stress iyo walwal badan iyo waxaas oo dhan way jiraan yani saacad waxaa maraynaa aad khatar ugu ah bini aadamka laakiin qofkii ilaahay u cararay wuxuu ma waayin yani runtii يعني waxyaabo personal aan jeclaan lahaa inaan inta ka ilaaliyo laakiin ma rabo inaan soo geliyo يعني sidaadaba dadka waxay jecel yihiin magaalooyinka waaweyn inay ku noolaadaan magaalooyinka waaweyn waa meelaha ugu khatarta badan bini aadamka ay ku noolaanayaan يعني waxaa lagu leeyahay magaalo weyn ayaa maaragtay dadka jecel yihiin magaalada maxaa maaragtay magaalada maxaa ka sameynaysa magaalada weyn aad يعني magaalada weyn meelaha mashaakilada ugu waaweyn ka dhacaan waa magaalooyinka stresska ku badan korontada iyo radiationka iyo chemicalka ku badan waxa ku badan yani dadka adduun raadiska ku badan dadka ku dardaray yani waxyaabo badan ku jiro magaalooyinka ana waxaan jeclahay magaalo yar ama tuulo ama meel baadiya laana waxyaabo badan marka aragtid oo adduunkan socdo oo dhibaato badan keenay waxa jeceshahay naftaada inaad ka sii gareyso marka yani dadka magaalooyinka jecel inay degaan wallahi waa meelaha ugu khatarta badan saani aaminsanahay marka waxa loo baahan yahay qofka inuu xataa يعني hadduu magaalada ka tagi karin bishii hal mar inuu iska baxo wax yar reerka inuu soo ziyaarto haddii ay meel baadiya degan yihiin yani xoogaa labada maalmood dhowrkii bilood inuu fasax qaato hadduu ka bixi karin magaalada yani hadduu waxyaabaha sameeyo emotional stress ka iska daba imaanaya marka dambena xanuunkan uu kala keeni karaa marka kansarka waxyaabo badan keeno daawadiisa insha Allah way fududahay waana ka hadli doonaa biidhnillaahi kariim intaas hadda ku soo xiraya qaybta koowaad oo daawada aan xanuunada aan kaga hadlayo insha Allah taala wili xanuunadu way badan yihiin haddii aan wada dhameyn karo wada dhameyn haddii kale waa soo gaabinaya laakiin insha Allah inaan wada dhameeyo isku dayaa si uu dadka ay uga faa'iidi karaan maximum faa'iido ay ka heli karaan faa'iidada ugu badan insha Allah taala marka taas hadda ugu dhameynaya insha Allah taala ilaahay waxaan weydiisanayna caafimaad ilaahay inaan u toobad keeno sadaqo la bixiyo ilaahay laga wada cabsado maaragtay ilaahay loo wada noqdo waxa ugu weyn hadda u baahannahay waaye laan ilaahay wuxuu dhahay fafirru ila Allah wax alla wixii aan dhibsano oo dhan waa inaan ilaahay xaggiisa ugu cararno
oo istighfaarna keeno istighfaarta in la badiyo aad bay istighfaarta dhammaan faa'iido u leedahay insha Allah tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.